roobabkan dabaylaha wata oo xalay ka dahay magaalada Dhuusamareeb ayaa sababay khasaare isugu jira barakac iyo guryo ku dumay roobabkaasi intii ay daayeen waxaana daadadku ay go'doomiyeen xaafado ka tirsan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug sidoo kalena waxaa hakad ku yimid isii socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha maamulka magaalada Dhuusamareeb ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahaa arintani iyo sidoo kale daadadka ku soo rogmaday gudaha magaalada Dhuusamareeb gudoomiyaha magaalada Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow oo warbaahinta kula hadlay bartamaha magaalada Dhuusamareeb xil halkaasi howl ay ka hayeen ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay saameynta roobabkani ay ku yeesheen magaalada iyo sidoo kale khasaaraha ay geysteen roobabkii horey uga da'ay magaalada Dhuusamareeb iyo hareeraheeda waxa uu xusay in loo baahan yahay in loo gurmado dadka roobabkani saameynta ku yeesheen xoog badan oo dabaylo badan wata awal maalmo dhaweed oo dhan roobkaas uu da'ayay qasaaro naf iyo maal bala u geystay dad dhintay guryo badan baa dumay maalmo dhaweed hadana xalay mid dabayl badan wata yimid magaaladii qayb badan oo kamid ah waa laga guuray guryo badanna waa dumeen kuwa kale dadkii waa ka barakaceen dadkii awal runtii barakacayaalka ahay oo maalmahan aan booqanaynay meeshii xataa ay maaragtay joogeen ayaguna way ka sii guureen marka dhibkaas ayaa jira hawlahaasan maanta marka annagoo dhan hadaan maamulnahay iyo shacabka iyo dadweynaha magaalada oo dhan sidii bal magaalada biyahan aan u suurta gelinaynay in magaalada biyuhu ka baxaan shaqadaasan aan runtii haynay waxa dhibaato ah hadda ka hor hay'adaha samafal iyo dad u shaqeynaya waxay yiraahdeen biyahan magaalada ka bixinaynaa markaasi biyihii waxay sameeyeen magaaladii dhexdeeda soo godeen injineerkii hawshaas ka shaqeynayay miya xumaay ma garan kara si wax yihiin biyihii marka magaaladii ku soo dhaxlaabanaya markii la rabay biyaha in dhanka shisha loo foorariyo oo ay magaalada ka baxaan meeshii magaalada dhexdeeda la guday meeshii biyuhu ku bixi lahaayeen buura laga dhigay taas darteed marka waxay sababtay in biyihii magaalada ku soo laabanayaan hadda annagu runtii tabar uma lihin hadda inaan maaragtay helno biyaha inaan si xoog u saarno oo aan kanaalna waaweyn qodno oo biyuhu ay ku shubmaan aan dilaacino meel xurfadaha biyuhu ay maaragtay ay ku nastaan marka waxaan rabnaa in laga gacan siiyo sidii maaragtay xurfada biyuhu aadaana loo qodi lahaa kanaalkii weynaayo biyuhu mar lahaayeen loo jeexi lahaa intaas ayaan codsanaynaa dadkana macnaha wax way hadda kulleeyta guryo waa dumeen dadna waa maaragtay barakacay Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb